بسم الله الرحمن الرحيم وورركي عالمك ومقالي مقالة يعني سو دياريي waxaan ugu talagalay ardayda advanced-ka ah ciwaankiisa cashirka waxa weeye chaotic waa qas weeye chaotic waa qas chaotic qas siin muuqaal qas ah waa chaotic qas weeyaan siin waa muuqaal in ka jirto New Zealand wadanka New Zealand scenes waa muuqaalo of chaos ee qas ah chaos waa qas strike ayaa ka dhacay New Zealand's largest ugu weyn wadanka New Zealand largest ugu weyn city magaalada of ay la yiraahdo Auckland la yiraahdo after kadib gunman qori wato markaasi opened uu furay fire xabad aad oo ku furay construction site meel dhismo ah construction site waa meel dhismo ah police-ka kuwigle si dhaqsi ah markaa secured ayaa markaa adkeeyay amniga secured adkeeyay area waa goobta markaasi before ka hor engaging howlgal ka hor before ka hor engaging howlgal the 24-year-old waa wiil ama dhalinyaro ama da' weeyaan oo 24 jir ah weeyaan suspect ayaa markaa laga shakiyay suspect oo markaa lagu tuhmayo weeyaan suspect lagu tuhmayo was ayaa markaa skill lagu toogtay lagu dilay was skill markaa lagu dilay at the scene goobta the rampage weerarka khalalaaska ah rampage waa weerar khalalas the rampage weerarka khalalaaska ah took place wuxuu dhacay just hour saacado before ka hor the woman is haweenka World Cup koobka adduunka Women's World Cup waxa la koobka adduunka ee haweenka loo qabtay waa managa loo qabtay kicked off oo ka bilowday in the city magaalada ee New Zealand ee Auckland magaaladaas weeyaan and about in ku saabsan 3 miles 3 mile from ka fog ama ka jirto from markaasi ka ah way halka the US team kooxda Mareykanka ee haweenaha weeyaan oo ku jiray koobka ee ka ciyaaray koobka adduunka oo naga loogu talagalay US team waa kooxda US weeyaan team waa koox Spain halka ay ka joogeen ayaa waxay u jirtay 3 miles several waa dhowr people that waa injured ayaa ku dhaawacmay ayaa markaas injured lagu dhaawacay in the violence khalaaska rabshada including markaa ku jiraan police officer saraakiil booliis ah police officer waa saraakiil booliis ah police officer waa sarkaal booliis ah police officer waa sarkaal booliis ah deewe waxaa markaa jiray some waa xooga annakshas walaac moments waqtiyo for markaas ay u ahayd American fans taageerada markaas Mareykanka ah fans waa taageero kuwaasoo arrived u imaaday to support inay taageeraan team USA kooxda USA Mareykanka ah in their first game gamekoodii koowaad on markaasi ahayd Saturday sabdida soo aadan bari ay taawiyaan Saturday what was waxay markaas ahayd initial horaantii set out mid markaas la dejiyay ama la qorsheeyay to be inay markaas ahayd a day maalin filled with laga buuxiyay a joy farxad an iyo celebration dabaaldeg now iminka a day waxay tahay maalin of morning ee barordiiq weeyaan morning after kadib shooting toogashada in ka dhacday Auckland caasimada lift taasoo markaa ka tageen 3 people 3 qof died ku dhintay including ay ku jiraan the gunman ninka markaas qoriga watay oo weerarka markaas sameeyay ee fuliyay inuu ku toogto nimanka police officer sarkaal police ah and several others iyo dhowr kale and several waa dhowr other oo kale civilians riot were also injured ayaa ku dhaawacmay the attack weerarka came wuxuu imaaday
just hour saacado before ka hor the opening match ciyaarta intaysan furmin the opening match ciyaarta intaysan markaas furmin of the Viva markaas waa gudi weeyaan oo Viva ciyaaraha markaas u qaabilsan weeyaan Women's World Cup Tournament tartanka koobka adduunka ee dumarka Women's World Cup waa tartanka Women's World Cup koobka adduunka ee naagaha miyaan markaasi ee tournament ee tartanka tournament waa tartan xilli lagu qabtay in the city magaalada waa ninkii markaas dhibka geysanaya weeyaan wiilkan 24 jirka ah lagu sheegayo he moved through wuxuu markaas ku meereystay isaga weeyaan moved through wuxuu ku meereystay it follow to follow saxad alla follow waa saxad follow to follow fine asoo markaa gamayo fine asoo xabada gamayo as he went goor asoo sii baxayo as he went asoo markaas sii tagayo as he asoo markaas went sii baxayo witness waa goobjoog described ayaa wuxuu qeexay wuxuu markaa qeexay scenes muuqaalada of ee markaasi panic naxdinta ah and chaos iyo qaska as goor ee shooting toogashada erupted uu markaa ka qarxay meesha erupted uu ka dilaacay erupted waa ka qarxay ama ka dilaacay erupted ka qarxay police belief ay waxay rumaysan yihiin belief ay waxay rumaysan yihiin the attack weerarka was no inuusan ahayn directly mid markaa toos ah linked ku xirnaa to the World Cup koobka adduunka nor was it mana ahayn politically siyaasi ahaan or ama ideologically ama madba or ama ideologically madba weeyaan motivate ee markaa lagu kicinayo prime minister waa ra'iisul wasaaraha oo magaciisa la yiraahdo Chris Hopkins Ovid ay wuxuu markaa yaboohay ama uu dhiibay yaboohay his markaas condolence tacsiyadiisa to love the one isku markaa la jecel yahay of the victims ee dhibka soo gaaray of the victims ee dhibanayaasha and iyo promised wuxuuna ballan qaaday a full investigation baaritaan markaas buuxdo weeyaan investigation baaritaan asaga hadlaya ra'iisul wasaare wuxuu leeyahay hadalkiisa wuxuu ku bilaabayaa waxaan jeclaan lahaa anigu buu oranayaa waxaan jeclaan lahaa to begin inaan ku bilaabo my expression muujinteeda by expression muujin my deepest ugu qoto dheer sadness murugo and condolence iyo tacsiyo tu markaas ku socota the family qoyska and family qoysaska and the loved ones ku wala jecel yahay of those who were kuwa ku dhintay lagu dilay in the tragic naxdin leh shooting toogasho naxdin leh tragic waa naxdin leh weeyaan shooting waa toogasho hiya halkani in Auckland caasimada oo New Zealand ah this morning subaxdani the whole nation dhamaan wadanka the whole nation wadanka oo idil is morning way idin la markaasi way idin baroor diiqayaan is ayaa markaasi morning idin la baroor diiqayaan with you idinka morning waa baroor diiq with you idin la baroor diiqayaan gun violence khalaaska markaas ee toogashada ama qoriga gun waa qori weeyaan ama xabad violence rabsho is rare what if in ay ka tahay wadanka New Zealand the counter wadanka saw uu arkay it is worst peace time xilliga ugu xumaa the worst ugu xumaa waaye peace time waa xilligii nabadda the worst marka ugu xumaa peace nabad time ee waqti the worst ugu xumaa peace waa nabadda time waqtiga mas wadareed shooting toogasho mas shooting waa toogasho markaas wadar waxaa la isku dardaa wadareed xisaabta guud markii isku daro waxaa la mas wadareed shooting toogasho in markaa ka dhacay 2019
when goor suspected laga shakiyey suspected laga shakiyey white supremacist waa qof markaas aaminsan yahay inuu koox markaasi gaar ah uu ka socdo. Supremacist waxaa la waa qof aaminsan koox gaar ah. Shooter toogte kill dilay 51 kontonishan worshippers kuwa markaas ilaah caabudaya ama salaada ku jira cibaado worshippers cibaado ku sugnaa markaasi ayagoo markaa cibaadada ay ugu jiray masaajid in ku dhex yaalo Christchurch meelayra weeyaan. That's all my lesson for the news. Inshallah, I think that I will release near time its video and it's audio visual. Inshallah, you're gonna watch, then you're gonna find a lot of vocabulary, and I think it will absolutely improve your speaking ability. If you watch so many times, I believe that your English speaking is gonna improve. Thanks a lot for watching my clip video. See you later. Bye for now.